ninka kani xaaskiisa aad ay u jeclaa waxay haysteen 2 caruur ah wax kasta uu awoodana wuu siin jiray balse xaaskiisa marnaba maqsuud kuma ahayn inkastoo ninka uusan taajir ahayn haddana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta uu heli karay haddii uu dhar u soo gado waxay dhihi jirtay waxaan waa wax liita oo mar hor laga tagay ninku wuu u dhoola caddayn jiray xaaskiisa wuxuuna dhihi jiray maalin ayaa taajir noqon doonaa waxaana kuu gadi doonaa dhammaan waxyaabaha qaaliga aad u baahan tahay haweenaydu marnaba taleefanka ma wici jirin ninkeeda ilaa ay wax ka codsanayso ma ahee haddii uu fulin waayo codsiga waxa kaliya ay samayn jirtay waa inay muranto maalmo ama ay dagaalanto galab asagoo shaqadiis ka soo baxay ayuu soo gaday 1 kiilo oo hilib ah isagoo aad u faraxsan oo leh xaaskaaga ka yaabi maanta oo caawa si fiican reerka ha u casheeyaan markuu soo gaaro gurigiisa oo xaaskiisa tusay hilibkii waxay tiri nin baad sheeganaysaa oo 1 kiilo oo hilib ah guriga kaynaysaa masaliid baa taalo iyo wax kaloo lagu daro kadibna bannaanka ayay iskaga tuurtay hilibkii ninkii aad buu u carowday balse wuu isdejiyey wuxuuna is yidhi marnaba hoos ha u dhigin jacaylka aad u qabto reerkaaga ninka kani maalin ayuu xanuun badan ka dareemay cagta bidixda ah kadib buro weyn ayaa ka soo baxday 3 bilood kadib markii ay aad u weynaatay xanuunkiina uu ku siyaaday ayuu isbitaal tagay waxaana laga helay kansar wuxuu ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan inkastoo aad u xanuunsanayo waxa uu haddana isku dayay in uu quudiyo qoyskiisa 2 sano kadib xaaladiisa caafimaad aad ay u darsatay kadibna waxaa la dhigay isbitaal lugti ayaa qalin looga sameeyey waana laga jaray laakiin nasiib daro waxay ahayd xilli dambe fayruskii waxa uu sameeyey jirkiisa oo dhan ayuu ku sii faafay wuxuuna u yeeray xaaskiisii si uu la dardaarmo wuxuuna ku yidhi xanaanay oo daryeel carruurta waxaan dareemayaa inaan adduunka ka socdo allaha idiin dhowree kadib waxa uu neefsaday neeftiisii ugu dambaysay wuuna geeriyooday haweenaydii iyo 2deedii carruur aad ayay u ooyeen maalmo ayay baroordiiq ku jireen 2 bilood kadib ayay xaaskiisii booqatay qabrigiisii wayna ag fadhiisatay iyadoo leh erayadan jacaylkaygii wax kastoo wanaagsan waad ii samaysay waxaad iila dhaqantay si sare laakiin waxa kaliya aad iga haleysay waxay ahayd muran iyo dagaal aan dhammaad lahayn marnaba ma aanan fahmin muhiimaddaada iyo jacaylkaaga ilaa hadda oo aad naga tagtay goortii aan aniga noqday qofka kaliya ee laga doonayo cuntada dharka biilka iyo waxbarashada iyo waxyaabo kale oo badan waan xasuustaa goortii aan tuuray kiiladii hilibka ahayd laakiin hadda ma hayo xitaa nus kiilo meel aan ka keeno dhammaantaynu waan tabaynaa maqnaashahaaga hadda gabadhaadii yarayd aad bay u owsaa oohintana ma joojiso waxayna i weydiisaa aabbahayd allaha kuu naxariistee dulucda sheekada ayaa waxay tahay waa inaad ku qanacsanaataa had iyo jeer wax weliba oo lagu siiyo hadday yar tahay ama ay weyn tahay midda labaad ayaa waxay tahay jacaylku ma aha wax badan inaa haysano balse waa sida la iskula wadaago wax yar iyo wax weynba